ilaa maalinka maantana waxaad ka tagtay ilaahay ayaad waxaad ka dhagaysanaysaa ood ka farxinaysaa farmaajo weliba la gaaray heer la yiraahdo inaad u ololeynayso awoodii waa haysataa ilaahay baa ku siiyay ummadii baa kula jirtay kullay waxaan filayaa ilaa hadda inay kula jiraan waxba lagaama quusan ilaa qofka mu'minka ah dee naxariista ilaahay kama quusto lagaama quusan marka waxaan kuu sheegayaa maxaa la yiraahdaa ra'iisul wasaare ilaahay ka cabso hana iibsanin waxaana soo gaaraysa arrimo aanan aniga runtii aanan jeclaysanin oo leeyahay ra'iisul wasaarihii wuxuu lacag baa jeebka loogu soo shubay kayska ikraam wuxuu ku gatay maxaa la yiraahdaa jagooyin la siiyey iyo ballanqaadyo la sameeyey horta waxaad ogaataa farmaajo ballan uu yaqaano waxay tahay miduu buriyo weligiis ballan uu qaaday ma fulinin waa ninkaa ogtaho kadaabka ah oo ilaahay iyo rabbi aanan aqoonin oo inta qofuu ballan u qaaday oo wuxuu ka xishooda jirin aad ogtahay haddii aad intaad ka tagtay ilaahay aad farmaajo aaminto waxaad un ogaataa qofka ugu horeeyo uu farmaajo ka taqallusaayo inaad adiga noqonayso sababtoo farmaajo inta qofuu dilay oo ka taqallusay oo aad ogtahay magaalada xamar lagu dilay ama indirect loo dilay ama toos loo dilay aad ogtahay waa raganimo ay lahaayeen iyo cabsi uu ka qaba inay berito la tartamaan ama ay amarkooda fuli waayaan waad ogtahay marka adigaaba ugu soo horeey victimka ugu horeey adaa noqonaysid haddaa intaas nacasnimo ay kaa tahayna dee waa adig marka inaad la yiraahdo magacii ilaahay inaad noo sheegto iyo inaad nagadato ma soconayso haddaad leedahay cadaaladan wadaa oo kayskiyan qabanaya oo kanaan yeelaya ninka la yiraahdo yaasiin faray meesha uma dhiibteen kulanajiis banaanka ma joogeen maantana waxaan maqlaynaa in la leeyahay waxaabad u ogolaatay inay raadsadaan doorasho inay ka qayb galaan oo xildhibaan ay helaan ayaadba u ogolaatay war doorashada koow shuruudaha ugu horeeya waxay tahay qofka inuusan mujrim ahayn oo dambiile ahayn ma dambiilayaashii aad ogolaatay inay doorashadii ay galaan oo adiga iyo qoorqoor aad ku heshiiseen ma waadan ilaahay ka cabsanayn war ma waadan ogeyn in ilaahay ku arkaayo yaa in ilaahay uu kaaga dhow yahay wanaxnu aqrabu ilayhi min xabli lwariid inuu ilaahay yiri ma ogid miya ma waadan ogeyn maa yalfidu min qowlin ilaa ladayhi raqiibun catiid inay malaa'ig ku kor saaran tahay oo maalin ilaahay keena ficilkaaga iyo qowlkaaga la qoraayo miyaadan ogeyn ma waadan ilaahay ka cabsanayn waxaan kaa sugayaa jawaab hadalna waxba tari maayo marka ra'iisul wasaare dooxadaa intaad tegin warbaad noo daryaamisaye dooxadaa intaad tegin warbaad noo daryaamisaye sidaad dul ilaah tahay ayaan daacad aaminaye dubaaqaygaba ma gelin inaad laba diiblaynayso dar allaahu ruux yiri miyaa dabinta noo qoolay dar allaahu kii yiri miyaa dabinta noo qoolay war waa ku noqo waxay ku jirtaa ilaa hadda xalaydan baan dhageysanay twitterkaagii ku jirtaa adigoo magacii ilaahay soo qaadanayo reerkii uma qalmaana inay tan ku dhacdo jawaabtii fahad bixiyey wax la aqbali kara ma aha war rooble ma hilmaantay war maad ilaahay ka cabsatid yaasiin faray doorasho kama qayb geli karo farxaan yaanan dhihina muxuu ahaa kulanajiis kama qayb geli karo doorasho fahad doorasho kama qayb geli karo farmaajo doorasho kama qayb geli karo sababtoo ah uma qalmaano shuruudihii ayay buriyeen ilaa maalinka maantana waxaad ka tagtay ilaahay ayaad waxaad ka dhagaysanaysaa ood ka farxinaysaa farmaajo weliba la gaaray heer la yiraahdo inaad u ololeynayso oobad hor kacayso u ololeynayso intaad ilaahay la jirtay xoog iyo quwad baad lahayd ilaahayna waa ku taageerahay adoon waardiye badan iyo dad badan haysanin baa lagaa cabsanay lianna allah taqwa aqwa alayhi ninkii ilaahay ka baqaa xoog leh wa illaa fal aqwa marka waxaan kuu sheegayaa ra'iisul wasaare dee waqtigii jumcadaaba la gaaray waa dhowahay ilaahay hanaga wada aqbalo allah ku toosiyo allah ku hanuuniyo marka
dib isugu noqo arrinta ikraan mid aad gada karta ma aha ilaahay baa kuu jeeda cadaaladay helaysaa ikraan laa shak annagu dad 2 beri iyo 4 beri iyo wax ku raadinaya mani annaga kitaabka ilaahay iyo wuxuu ilaahay yiraahday rasuulka yiraahdaan dhageysanaa waana samirsanaa marka wabillahi tawfiiq wa ufawwidu amri ila Allah wallahu basiirun bil ibaad